kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada xarunta telefishinka BBC da London wararka caawa ugu waaweyn waxa kamid ah madaxweyne Donald Trump wuxuu gaaray Israel waa lugtiisii labaad ee safarkiisa bariga dhexe ee Yurub cudurka daacuunka oo ka dilaacay Yemen ayaa ku faafay xawli aan la filaynin 250 qof ayaa ilaa hadda u dhintay timaha afroga ahna waa loo dabaal degayaa waxaanu eegi doonaa hooyo reer London ah oo caruurteeda ku baraarujisay inay jeclaadaan timahooda oo qayb ka ah hidahooda Donald Trump wuxuu ku sugan yahay Israel taasi oo qayb ka ah booqashadiisii ugu horeysay ee caalamka tan iyo markii xafiiska uu qabtay wuxuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee xilka Mareykanka haya ee booqda gidaarka oohinta oo ah goob ay ka ducaystaan Yahuudu booqashadiisa Israel wuxuu diiradda ku saarayaa soo celinta wada hadallada nabadda ee bariga dhexe Axmed Xaaji Xasan ayaa ka warramaya wuxuu toos uga yimi magaalada Riyadh ee dalka Sacuudiga si uu u soo gaaro Israel laba dal oo aan wadaagin xiriir diblomaasiyadeed wuxuu doonayaa inuu darso fikradaha ah inuu shakhsi ahaan diyaar u yahay wax ka qabashada xaaladaha taagan madaxda Israel waxay u soo baxeen inay salaamaan saaxiibkooda ugu weyn waxaana horyaal fursadaha aan la helin ee nabadda iyo xasiloonida loogu keeni karo gobolkan iyo dadkiisa iyo in laga adkaado argagixisada lana sameeyo mustaqbal nabad iyo barwaaqo ah waxaan halkaas ku gaari karnaa wada shaqayn oo keliya ma jiro jid kale Mr. Trump wuxuu horey u niyad jebiyey Israa'iiliyiin badan wuxuu ballan qaaday in safaaradda Mareykanka uu ka qaadi doono Tel Aviv uuna geyn doono Qudus waxaa laga digayaa in magaaladaasi oo loo aqoonsado Israa'iil ay sii xumayn doonto heesada ka dhex taagan labada dhinac ee Falastiin iyo Israa'iil laakiin nin Israa'iili ah oo dhalashada Mareykanka haysto oo u dhow Trump wuxuu aaminsan yahay in fikir wanaagsan uu jiro xiriirka Israa'iil waa la hagaajiyay 8 sano Obama uu joogay xiriirka Mareykanka iyo Israa'iil ma wanaagsanayn waxaan ugala jeedaa taasi hadda kadib ma dhacayso waan midaysannahay sidii loo baahnaa dhanka ramadda Falastiiniyiinta waxa ay doonayaan in Trump uu muujiyo fikrad uu ku aqoonsanayo dal Falastiiniyiin ay leeyihiin si aynu hore ugu soconno xalka labada dal isbarbar degan waa in dalka Falastiiniyiinta la aqoonsado oo ciidamadan haystaana ay ka baxaan taasina waxa weeyaan in ay Mareykanku ku cadaadiyaan Israa'iil haddii ay dhab ka tahay safarkan gaaban madaxweyne Trump waxa uu kula kulmi doonaa hogaamiyaasha labada dhinac lama filayo in wada hadallada nabadda si degdeg ah ay ku soo noqdaan arinta si dhaqso ah ay u kala cadaan doontaa oo la kala ogaan doonaa sida aqalka cad uu u qaabeyn doono wada xaajoodka mustaqbalka faahfaahin dheeraada oo ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adigoo ka galaya mobilkaaga hay'adda Save the Children ayaa ka digaysa in daacuunka ka dilaacay Yemen uu dhaqso u fidi karo ku dhawaad 250 ruux ayaa bishan oo kaliya ku dhintay cudurkaasi iyadoo oo boqolaal kalena looga shakiyay in cudurkaasi qabaan Suhayba Maxamed Badqas ayaa inooga haysa warbixintan 2 sano dagaalka Yemen socday ayaa wali waxa taagan xaalad bani'aadanimo oo xun magaalooyinkii way burbursan yihiin waxa jira cunno yari baahsan halka in ka badan 2 milyan oo caruur ahna ay haysato nafaqo darro daacuunka hadda dilaacay ayaa ah halistii ugu dambeysay ee taagan isbitaalada way buuxaan way ii muuqataa siday u adag tahay xaaladdu oo ah in adeeg loo fidiyo dal dadkiisa colaad iyo fakhri isugu biireen dadka buka tiradoodu way soo kordhaysaa waxaana ka mid a dadka daacuunku ku dhacay waxaan aragnay bukaan badan oo waarka u jiifa daacuunka cudurka waxa lagu kala qaadaa cunno iyo biyo wasaq ah saacado gudahoodna qofka waa uu dhiman karaa haddii aanan la daweyn walow dagaalka u dhaxeeya dowladda iyo fallaagada xutiyiinta ay ka dhigan tahay in kala bar isbitaalada dalka Yemen ay xiran yihiin ayaa sidoo kalena dekedaha la duqeynayaa taa oo adkaynaysa in dadka gargaar la gaarsiiyo waxa la sheegay in daacuunka uu aad u fidayo
ku dhowaad 250 qof ayaa u dhintay bishii aynu soo dhaafnay. Hay'adda Save the Children waxay ka digaysaa in ka badan 65,000 oo qof oo kale uu ku dhaco bisha Juun dhammaadkeeda. Guud ahaan dalka Yemen ayaa la sheegayaa in maalin kasta 100 qof uu soo rito daacuunka oo ugu yaraan 2 ama 3 ka mid ay yihiin caruur. 18 ka mid ah 22 gobol ee dalkaasi ayuu saameeyay cudurka. qashinka oo aan laga gurin magaalooyinka ayaa sumeeyay dhuumaha ay biyaha ka helaan dadka. 14 milyan oo qof ayaanan haysan biyo nadiif ah oo ay cabaan. Hay'addu waxay leedahay dhammaan dhinacyada dagaalka isku haya waa in ay si dhaqso ah u soo afjaraan xayiraadda gargaarka oo ay gacan ka geystaan sidii loo xakameyn lahaa cudurkan la daweyn karo. bal imkan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta. maxkamad aad loo sugayay ayaa ka bilaabantay dalka Turkiga oo la xidhiidha afgambigii dhicisoobay ee dalkaasi ka dhacay Juulaay 2016. xabsi ku yaala daafaha Ankara ayaa maxkamad laga dhigay 220 dacwaysan ayaa halkaasi lagu xukumayaa. mid ka mid ah ayaa taliye sare oo ciidanka cirka ah. warbixin cusub ayaa lagu sheegay in 30 milyan oo qof oo caalamkii ay ka barakaceen guryahooda sanadkii hore, iyadoo dagaalada iyo masiibooyinka dabiiciga ay saameynta ku leeyihiin. qiyaasaha la sameeyay ayaa muujiyay in dadka dalkooda dhexdiisa ku barakacsani ay labanlaab ka badan yihiin dadka qaxoontiga. waraaqa si hoose looga helay sharikadda Facebook ayaa muujiyay sida ay shaqaaluhu u tafatiraan waxyaabaha buuqa dhalin kara. sanadkan dhammaadkiisa waxay sharikaddu qoran doontaa in ka badan 7,000 oo qof oo iyagu kala shaandheeya waxyaabaha lagu soo bandhigo halkaasi. tilmaamaha tababarka ayaa lagu xusay in waxyaabaha qaar Facebook ay ogolaan karto. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha dadka arag la'aantii ay kala kulmaan caqabado noloshooda, kuwaasoo isugu jira waxyaalo badan, iyadoo tasiilaadka waxbarashada iyo shaqaduna ay yar yihiin. hay-adda qaramada midoobay ee caafimaadka ee WHO ayaa ku qiyaastay heerka baahsanaanta indhala'aanta ee Soomaaliya 1.2%. in ka badan 100,000 oo qof ayay aragtidu ku adag tahay. sababta ugu weyn ee indhala'aanta keenta Soomaalidu waa cataract ama xuubka indhaha fuula. Cabdirasaaq Xaaji Catoosh ayaa dhawaan booqday Muqdisho, gaar ahaan iskuulka ardayda indhoolayaasha ee Al-Nuur. warbixintan ayuu nooga diyaariyay. waa dugsiga Al-Nuur ee dadka araggala waxa uu ku yaalaa bartamaha Muqdisho subax walba 7:30 daqiiqo. halkan waxaa isa soo taaga gaari bas ah oo ay la socdaan ardayda dhigata dugsigan. mid ayay uga soo degayaan baska, isla markiina waxay isu taagayaan safka iskuulka ee daabuurka loo yaqaano. safka aroornimo waxaa loogu talagalay in ardayda loogu diyaariyo jir ahaan iyo maskax ahaan si ay u wajahaan hawsha waxbarasho ee hortaalla. kadib dhowr tix oo gabayo iyo aayado qur'aan kariimka ah waxa ay gelayaan fasallada. Cabdiraxmaan Cali waa arday ku foogan maadada sayniska. waxa uu si fiican u bartay isticmaalka qalabka braille-ka. waxa uu qaadanayaa casharro. wuxuu rabaa in uu macallin noqdo mustaqbalka. aad ayuuna ugu rajo weyn yahay inkastoo uu wajahayo caqabado. ciladaha ugu badan aan la kulmay waxaa ka mid ah Muqdisho amnigeeda inta badan aad u hooseeya, laakiin xilliga hadda uu soo wanaagsanaana. mararka waxaa jira oo wadooyinka ay xiran yihiin, iskuulka si kuu suurtagelaya inaa imaadid. xirfadaha gacanta laga qabto waxaa sidoo kale ardayda lagu baraa dugsiga Al-Nuur. hadafkuna waa sidii ardaygu uu ku heli lahaa waxbarasho kaamil ah iyadoo lagu jiro casrigan tiknoolajiyadda. waa fasalka 8aad ee dugsiga indhoolayaasha Al-Nuur. ardaydu waxay ku mashquulsan yihiin garaacista waxbarashada kombiyuutarka. balse su'aashu waxay tahay ardaydan markay cilmigooda bagaan dadka wax shaqaalaysiiya ma haystaan oo ma u diyaarsan yihiin tasiilaadka dadka aan aragga lahayn. maxamed axmed waxa uu ku dhashay arag la'aan, wuxuuna waxbarashadiisa ka gaaray heerka jaamacadeed ee shahaadada masteredka. hase yeeshee muddo 5 sano ah ayay ku qaadatay inuu shaqo macallin jaamacadeed helo qalinjabintiisa kadib. tasiilaadkiina ma yaalaan oo tasiilaadkii waa yar yahay. dadkii aqoonta lahaana waa ka joogaan. hase ahaatee dawladdii aaminaadeedii iyo dadkii naafada ahaa guud ahaan iska fogeynteeda, gaar ahaan dadkii araggala ah yaa ku jirtaan dhihi karaa. iyadoo ay jiraan caqabadahan ayay tahay in ardayda ay iska sii wataan waxbarashadooda, rajaduna tahay in Soomaaliya ay gaari doonto heer fursado isku mid ah ay ka helaan dadka oo dhan. Cabdirasaaq Xaaji Catoosh, BBC, Muqdisho. haddaba Cabdiraxmaan Faarax Lunge waa aasaasaha iskuulka Al-Nuur
iminkana wuxuu yahay agaasimaha arrimaha naafada ee madaxtooyada Soomaaliya waxa uu noo sheegay tirada ardayda indhoolayaasha ah ee nasiib u helay waxbarasho iyo baahida weli jirta. walaadkaas oo idil kama badna 200 arday dadka aragga la ay wax baraan waana hadda dhibic biyo macaan oo bad lagu shubo kala weeyaan waxba kama tarta baahida guud ee dadka aragga la ee Soomaaliyeed sidoo kale dadka aragga la gaar ahaan carruurta yararka dhibaato weyn bay qabaan oo waxa weeyaan ma jiraan dad tababaran oo iskuulaadka caadiga macallimiinka oo dareemi kara qofka aragga la markuu iskuulka jooga aragga qaban dhihi lahaa haddii araggiisu uu nuxuusi ama liito ama uusan akhrisan karin sabuuradii hore kama dareemi karaan marka carruur badan baa ku dhibaataysan iskuulaadka caadiga dadka naafada waa asset waa hanti xaqiiqa ah wadamada hore u marana waxyaabo ay ku horumareen waxa kamid ah dadkooda dhammaan ka wada faa'iideysteen bal iminkana wararka ciyaaraha ugu waaweyn Arsenal ayaa weli murugaysan kadib markii ay galeen kaalinta shanaad ee horyaalka Ingiriiska waxayna ka hadheen tartanka horyaalada Yurub waa markii ugu horeysay ee sidaas ku dhacdo tan iyo intii Arsene Wenger uu tababara u ahaa waxa baryahanba saxaafadda ku jiray wararka ku saabsan mustaqbalkiisa inuu ka tagayay iyo inuu la joogayo kooxdaasi. Arsenal ayaa xalay 3-1 Everton kaga badiyay ciyaartoodii ugu dambeysay ee xil ciyaareedka sanadkan. Real Madrid ayaa dirqi kaga badiyay oo ku qaaday koobka La Liga. Barcelona ayaa tartan adag ka dhaxeeyay waa markii ugu horeysay tan iyo 2012 ay qaadaan kadib markii ay 2-1 ku jiireen. Malaga ayaa Cristiano Ronaldo waxa uu dhaliyay goolkiisii 40aad ee xil ciyaareedkani iyo kiisii 14aad ee 9kii ciyaarood ee ugu dambeeyay. Real ayaa fooda istarayaan Juventus ciyaarta koobka horyaalada Yurub ee 3 Juun ka dhacaysa magaalada Cardiff. hooyo haysataa inan 12 jir ah oo ku nool Ingiriiska ayaa wado weyn ku qotamisay board loogu dabaaldegayo timaha dabiiciga ah ee dadka madow si ay inanteeda kalsooni ugu hesho ay kaga maaranto xidhashada timaha kuweeda ahayn iyo kiimikada timaha lagu jilciyo. isticmaalka timaha aan dabiiciga ahayn ee lagu sooho laguna giijiyo timaha ayaa hadaba wuxuu ku badan yahay dumarka Afrikaanka ah. dhakhaatiirta ayaa sheegay in kiimikada timuhu waxyeello caafimaad ay leedahay. boodhkan waxaa loogu dabaaldegayaa timaha Afrikaanka si kalsooni loogu siiyo dumarka timahooda dabiiciga ah loogana joojiyo isticmaalka kiimikada iyo timaha beenta ah. Lucky aqoon uma leh xayeysiiska laakiin waxay aaminsan tahay boodhkani inuu yahay mid xambaarsan fariin muhiim ah. ololahan xaqiiqdii waxay igu dhiirageliyay gabadhayda sababtana waxay tahay waxaan rabaa inay ku soo barbaarto iyada oo ku kalsoon jirkeeda mintin iyo cirib sababtoo ah maalmahan markaad bannaanka aado waxaad arkaysaa haween badan oo Afrikaan ah oo tintooda jilic ka dhigay xiranayana timo buruka ah mar rabo in marnaba ay gabadhayda dareento in ay wax ka qaldan yihiin timaheeda. Lucky inanteedu way jeceshahay timaheeda laakiin sidee bay u arkaan asxaabteedu? kulligood way jecel yihiin laakiin marmar waxay igula taliyaan inaan jilciyo laakiin ma doonayo. timaha dabiiciga ee Afrikaanka ayaa dhaliyay dood waxaana lagu tilmaamay waxaan qaab lahayn bulshadana aan lala dhexgali karin. mashruuca Embrace ayaa damacsan inay wax ka bedelaan fakarkan. dadka ku takhasusay nafaqada timaha ayaa ka dayriyay dhaawaca ay geystaan timaha beenta ah iyo kiimikadu. waxaannu aragnaa dumar da'doodu tahay 20 oo xoog ugu geejinaya tintooda kuna tidca timo been abuur ah dhaqaale awgeed si ay timaha bishii ama 2 bilood mar u hagaajiyaan. sidaa awgeed mar walba waxaana soo booqda dumar iyagoo aan 30 gaarin timihii ka idlaadeen waxbana aan loo qaban karin. hawl badan ayaa Lucky u taala. boodhkan 2 isbuuc oo kaliya ayuu taagnaanayaa. taasina waxa ay ku khasbaysaa inay la timaado fakar kale oo ay ku gudbiso fariinta ay sido. ugu dambeyntiina haddii aad ka baqdo meelaha dhaadheer bal nala daawo waa sport aad ay u adag tahay in dadka qaar sameeyaan. waa xadhig dheer oo 100 mitir ah oo 2 buurood u dhaxeeya ayuu qofku soconaya. arday Jarmal ah oo la yiraahdo Frederick Cohen ayaa la rumaysan yahay inuu jabiyay xaddii rikoodhka adduunka. wararkan iyo kuwii ugu dambeeyay waxaad ka helaysaan oo kala socon kartaan boggayaga bbcsomali.com. barnaamijkeena caawa intaas ugu dhan yahay nabadgelyo.